mahadsanid daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa studio Royal 24 ee bariga Sacuudi Arabiya jimco kastana aad naga daawataan wararka bariga dhexe wararkan idin haynana maanta waxaa kamid ah wadanka Lubnaan oo ayaamihii ugu dambeeyay ay ka jireen qaraxyo kala duwan oo lala beegsanay goobaha xukuumadda ay leedahay ayaa waxaa horaantii weegan dhacay in laga dilay sarkaal ka tirsan ururka Xisbullah ee ka dagaalama koonfurta Lubnaan ayaa sheegay in la dilay mid ka mid ah hogaamiyayaasha militariga ee ururkaas Xasan Al-Lakis ayaa ururku sheegay in lagu dilay meel u dhow gurigiisa ee dibadda magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan warbixin ay soo saareen ururka Xisbullah ayaa lagu sheegay in hogaamiyahan ay dileen Israa'iiliyiintu isagoo ka soo laabtay shaqada saqda dhexe habeenkii Xisbullah ayaa sheegay in Israa'iil ay dhowr jeer oo hore isku dayday inay disho hogaamiyahan kala dowladda Israa'iil ayaa iska fogeysay dilkan oo sheegtay in Xisbullah uu doonayo inuu ka dhigto marmarsiyo uu weeraro gaadmaha ku dhufto wadanka Israa'iil laakiinse annagu waanu la soconaa dhaqdhaqaaqa uu wado Xisbullah sarkaal sare oo qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay caddahay in madaxda Suuriya ay mas'uul ka yihiin dambiyada dagaal ee ka dhacaya dalkaas Nafi Pillay ayaa sheegtay in madaxweyne Bashar al-Assad laftiisu qayb ka yahay dambiyada dagaal iyo kuwa ka dhanka ah aadanaha ee dalkaas ka dhacay Pillay ayaa sheegtay in guddi ka socda qaramada midoobay oo baadhayay xadgudubyada ka dhacay Suuriya ay ogaadeen in dhibaatooyinka la xiriira xuquuqda aadanaha ay marayaan heerkii ugu sarreeyay wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Suuriya Faisal Miqdad ayaa beeniyay eedeymaha dowladda loo soo jeediyay mucaaradka hubaysan ayaa dagaal kula jira ciidamada dowladda madaxweyne Bashar al-Assad dhanka kale wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Assad ayaa shalay sheegay arrimo aad u badan iyo mowqifka ay ka taagan yihiin dadka aaminsan in xukuumadda ay wataan meesha ay ka baxdo hadalladaas oo dhan isagoo ka jawaabaya wuxuu yidhi Bashar Assad waa madaxweyne haddii dadka aaminsan in heshiiska ka dhacaya Geneva lagu dhiibayo furaha wadanka taana wax soconaya maaha Bashar Assad isaga ahaanaya madaxweyne haddii la doortana madaxweyne ku meel gaar ah waxaana hogaamiyaha Suuriya wuxuuna ahaanaya madaxweynaha dalka Suuriya dhowaan ayay ahaayeen markii shirkii wadahadalka mucaaradka iyo dowladdu kusoo afjarmay magaalada Geneva inkastoo mucaaradku ay saluugeen shirkaas haddana waxaa loo ballansan yahay mar labaad shir kale oo ka dhici doona isla magaalada Geneva ka dhigay wadanka Masar ayaa ayaamihii ugu dambeeyay laga waday sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka qabyada ahaa ayaa waxaa ka warbixiyay Amar Musa oo isagoo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka ee dalka Masar ikhwaan muslimiinka ayaa diiday dastuurka qabyada ah ee ay isku afkarteen guddiga dastuurka ee dalka Masar dastuurka cusub ayaa la filayaa in loo codeeyo sanadka cusub guddi konton ruux ka kooban oo loo dhisay dastuurka ayaa u codeeyay qodobada uu ka kooban yahay ka koobnaan doono dastuurku fagaaraha taxriir taageerayaasha madaxweynihii xilka laga qaaday ee Maxamed Mursi ayaa markii ugu horeysay dibadbaxyo ku dhigay fagaaraha taxriir xilliga ay codeynayeen guddiga dastuurka cusub ayaa awoodda dheer ah siinaya militariga iyadoo uu ogolaanayo in dadka rayidka ah la horgeeyo maxkamad military doorashooyinka baarlamaanka sidoo kale dastuurkan kuma cadda in doorashooyinka baarlamaanka ay ka horeyn doonaan kuwa madaxweynaha taas oo caqabad ku noqon karta jadwalka ay dejisay dowladda uu taageero militarigu dibadbaxyo ayaa markii ugu horeysay laga dhigay fagaaraha taxriir go-aankan kama dambaysta ayaa la sheegay inuu leeyahay madaxweynaha ku meel gaarka Cabdi Mansuur sida ku cad jadwalka militariga ay dejiyeen kadib markii ay xukunka ka tuureen Mursi waxaa la doonayaa in doorashooyinka laga qabto 6 bilood kadib markii la ansixiyo dastuurka cusub ee dalka Masar madaxweynaha dowladda Suudaan Umar Xasan Axmed al-Bashir ayaa ammaan iyo bogaadin u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya horumarka muuqda ay ku tallaabsatay intii ay shaqeynaysay madaxweynaha ayaa caalamka ugu baaqay in horumarkaas muuqda ee dowladda iyo shacabka Soomaaliya ay gaadhay in lagu taageero si looga midho dhaliyo al-Bashir ayaa hadalkan xalay ka sheegay shir madaxda dowladda Suudaan iyo Itoobiya ay ku yeesheen magaalada Khartoum ee dalka Suudaan kaas oo looga hadlayay iskaashiga labada dal iyo heshiisyo kale dan ayaa sheegay in ay aad ula dhacsan yihiin horumarka ballaaran ay ku tallaabsatay dowladda federaalka ah kaas oo ah dhanka ammaanka soo celinta adeega bulshada ee aasaasiga ah sidoo kale al-Bashir oo ammaan u soo jeediyay AU
IGAD iyo bulshada caalamka ayaa waxa uu yidhi waxa aad ula socda xaaladda gobolka bariga Afrika iyo horumarka uu ku tallaabsaday gaar ahaan dalka Soomaaliya waxaana idin xaqiijinayaa taageeradiina dadaalka ay wadaan midowga Afrika iyo midowga IGAD iyo guud ahaan bulshada caalamka dadaalkaas oo ah in la joojiyo dagaalka u dhexeeya shacabka Soomaaliyeed iyo sidii looga midho dhalin lahaa heshiisyada heerka qaran ah ballaarinta ammaanka sareynta qanuunka oo dadka lagu xukumo iyo sidoo kale soo celinta iyo dib u habeynta xarumihii dawladda wuxuu xuseyn dawladda Suudaan iyo shacabka reer Suudaan ay mar walba garab taagan yihiin Soomaaliya ayna taageeradaas ay sii wadi doonaan halkan waxaan ku soo gudbinaynaa war aad la yaabi doontaan oo ka baxsan wararka bariga dhexe oo ah qofka adduunka ugu culus oo laga diiwaan geliyay waa gabadh u dhalatay wadanka Mareykanka magaceedana Mayra waxay dhalatay sanadkii 1980 Mayra ayaa ugu cuslayd miisaankeedu wuxuu ahaa 470 kiilo laakiin si haatan waa 190 kiilo marka loo eego intii miisaankeedu hore ahaa iyo haatan aad bay u kala duwan yihiin balse maxaa sababay waxay caan ku noqotay bishii Maarso 2008 kadib markii lagu soo eedeeyay dilka wiil 2 sano jir ah oo ay habaryar u ahayd 2011 waxaa lagala noqday eedeymihii loo soo jeediyay oo idil burnaanteeda iyo dhimashadii wiilka ay habaryarta u ahayd darteed Mayra Rosales waxay soo jiidatay qalabka warbaahinta adduunka oo dhan sanadkii 2012 telefishinka dalka Mareykanka ee TLC wuxuu hirgeliyay documentary uu ku magacaabay Half Ton Killer oo ah dil 500 oo kiilo ah kaasoo goor dambe ka muuqday Channel 4 ee dalka Ingiriiska 5 sano kadib Mayra Rosales waxay leedahay waa yaab inaan wali noolahay caafimaadna qabo sida waxay ku sheegtay waraysi ay siisay ABC-da Mareykanka laakiin dhacdadan waxaa barbar socday dadaallo ay dhaqaatiir sameeyeen oo ku aadanaa badbaadinta Mayra iyadoo markii guriga laga bixinayay garbiyada guriga in la jajabiyo mooyee si kale aan loo saari karin waxaana aakhirkii qalliin lagu sameeyay ay ku caafimaaday iyo qarashadii dilka beenta ay samaysay waana waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibsan halkaana waxay noogu dhamaaday wararkii bariga dhexe awil cagaare Royal TV bariga dhexe